waxaanu qodobkan ku eegi doonaa Turkiga oo muujiyay inuu ka warqabo in iyagu ku xigi doonaan marka laga soo jeesto Iran isla markaana cudud aan caadi ahayn soo bandhigay fariin istiraatiiji ahna u diray Israa'iil. waa barnaamijkan gacan ka geystay makhaayadda Mandi Palace Restaurant oo aad ka heli karto cunto muunad leh, menus kala duwan iyo madal toolmoon intaabana kaga maqsuud cinwaanka iyo telefoonada shaashada kaga muuqda. madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan ayaa soo bandhigay gantaalka baalistiga ah ee Typhoon Block 4 oo wax ka dili kara meel ka fog 1500 kilomitir xilli ay Turkigu xariga ka jareen mid kamid ah warshadaha ugu ballaaran ee hubka farsameeya ee meel qura laga furo, taasoo hoosta ka xariiqaysa sida Ankara ay uga go'an tahay inay gaarto isku filnaan ku foogan dhinaca farsamaysiga agabka ciidanka xilli ay cirka isku sii shareerayso xiisadda bariga dhexe oo imika noqday gobol aan xaalkiisa la saadaalin karin. kaaga darana gantaalkan Typhoon Block 4 ee baalistiga ah oo guuxiisa 5 jeer ka dheereeya ayaa waxa uu gaaraa meel kasta oo ka tirsan Israa'iil. waxaan lagu wadaa in tarab loo soo saaro sanadkan 2026 taasoo Turkigana siin doonta awood uu ku gaaro meelo fog. madaxweyne Erdogan ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda istiraatiijiga ah ee ay leedahay in Turkigu yeesho cudud uu ku farsamaysto gantaalaha muhiimka ah isagoona xusay kadib markii uu xitaa magaciisa ku saxiixay gantaalkan baalistiga ah in warshadan cusub ay soo saari doonaan madaxyada dagaal ee gantaalaha ay Turkigu farsameeyaan sida Typhoon, Jakir, SOM oo kulligood ah nooca loo yaqaano cruise-ka. waxaan ka marnayn gantaalaha lagu dilo taangiyada ee loo yaqaano Omtaz, kuwa la hago oo lagu xiro diyaaradaha, qabtayaasha daafaca cirka iyo xitaa kuwa lagu dumiyo dhufaysyada dhulka, qalcadaha adag iyo bartilmaameedyada aadka loo xoojiyay. waxaan sidoo kale ka marnayn madaxda dagaal ee gantaalaha kale ee Sibir, Admaka, Hisar A, Hisar O, Sungur, Mam T iyo Mam L oo ay gebigood Turkigu farsameeyeen. Erdogan ayaa intaa raaciyay in Ankara ay imika gaartay wax uu ku tilmaamay ilin kale oo muhiim ah xilli ay ceyrsanayso inay si buuxda ugu madax banaanaato farsamaysiga hubkeeda. fariin uu soo dhigay dagalka X wuxuu Erdogan intaa ku daray in Turkigu ay imika asaaska u dhigaan xarunta lagu farsameeyo gantaalaha kala gedisan ee laalahan Missile Integration Facilities iyo mashaariic lagu farsamayn doono kaabayaal kale oo muhiim ah oo kuwa agabka ciidanka ah oo ay ku jiraan Critical Fuel Production Facilities oo shidaalka lagu sifayn doono, laalahan Warhead Facility oo madaxda gantaalaha lagu farsamayn doono iyo xarun kale oo loogu talagalay injineeriyadda daraasadeynta iyo horumarinta teknolojiyada hubka oo loo yaqaano Advanced Technologies R&D and Engineering Center. taasoo Turkiga u noqon doonta saldhig adag oo lagu farsameeyo agabka ciidanka. soo bandhigida agabkan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli uu afayeenka madaxtooyada Farxatiin Altun oo isna faafiyay muuqaal arrintan ku saabsan uu sheegay in Turkigu ay ka warqabaan waxa gobolka ka socda sida uu yiri. waxaan intaa raaciyay in warshadaha soo saara agabka ciidanka ee dalka Turkigu ay imika 80% sameeyaan qalabka ay adeegsadaan xooga dalka Turkigu oo iskugu jira bad, dhul iyo ceer. waxaan xusid mudan in 2000 uu Turkigu farsamaysan jiray 20% oo qura. sida uu qabo warqaadka Yani Safak, arrintan ayaa diraysa fariin adag oo istiraatiiji ah kadib ku dhawaad 40 maalmood oo uu soconayay dagaalka ay Mareykanka iyo Israa'iil ku qaadeen dalkaasi Iran oo isna muujiyay inuu istifaaci karo. waxa kale oo ay Turkigu maanka ku hayaan hadalkii ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Naftali Bennett oo bar dhawad sheegay in Turkigu ay noqon doonaan Iiraanta cusub, isagoona ka digay in Ankara ay dhisayso wax uu ku sheegay xayndaab cadow ku ah Israa'iil isla markaana uu ballaarinayo xuduudihiisa istiraatiijiga ah. waxaana dabcan xayndaabka laga hadlayo kamid ah dalka Soomaaliya iyadoo nin dhinaca ammaanka kala talin jiray Benjamin Netanyahu uu farta ku goday rakaciraadka ay Turkigu ka dhisayaan meel aan ka fogeyn magaalada Muqdisho oo uu sheegay in lagu tijaabin karo gantaalaha baalistiga ah oo uu dabcan ku jiro midkan loo yaqaano Typhoon 4. sidoo kale wasiir xigeenka arrimaha dibadda Israa'iil Sharon Haskell ayaa 10 December ee sanadkii tagay waxa ay sheegtay in wada hadal hoose kula jiraan dowladda Soomaaliya sida ay tiri walow 16 maalmood xilliga kadib ay Israa'iil si rasmi ugu dhawaaqday inay aqoonsatay maamulka Somaliland, taasoo sii xumaysay macaamil kasta oo dabcan ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Israa'iil oo aan abadkood yeelanin xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV. Rabbiyo kibirba